daahir ku soo dhawaaw hon cable TV هون كيبل تي في ده أنا أنشأ لك بدي جينو فرحان حاجة عليك يا محمد عبد الله لبضبا وحوي وصاحبي قارئة وتي في ده متقنا يجد وانا وحوي وحلاي هاي كسر دوار مضشة وضع ركتنا أنا قحط ورتي سنة كسب daahir waa mahadsantahay waxaad ka mid ahayd dad badan oo Soomaaliyeed oo maalmihii ugu dambeeyay dareenkooda ka dhiidhinayay shirkan ka qabsoomay magaalada London maanta waanu ku sugannahay adigana aad gobjoog ka tahay barnaamijyo badan ayaa abaabuleysay maxaa iska bedelay mowqifkaada وحوي دولة متقنا مركه هوري كالنت اللي جرب يدوع يجيلين تذكر وش شجع وش الرحان واحد ماشي كسر أنا يسد دولة نوش شيء أنا جو حورتي سنة هو اللي كسر عرّي وده إنه ور حراش هذا عيو شدال كذا واحد بنبحين قابلنا لكن مركز دمبه والله كل الدولة دي مدحض والله هذا لني وحيد هذا المشي حكى بجيران كمان رميسن واسعنا واحد تقني ده كيكس باركا هاي وحنا السعودية شركة دي مش وحنا وصل بعض حراش سويني وروح على حراش تماهي ستيني ماركتي اللي سمينيا دراسات اللي وسمي سرفي اللي وسمي الصومالي شدال كيسي أي على تصنيع عالمك وشركتها شدال كعالم كسوق ماني ماشان أي اللي الصومالي قيرة بوحة كاريا كفائدستا مركا تودي كارس أما 20 years يا وحي ماشي كسب بحلها أيام ما أنت لقى هلا يا مركا وحى ماشي يصب بعد مركا إن السياسيين ودي دولة معارضة الدنيا إني أنا نقتان حابب دبك الوش دي waayahay nin weyn waxa la yiri xantiisa ma moogo banaanka waxa ku jirto in daahir calasow maaragtay si banaanbaxyadaas uu baajiyo dawladda maadaama xiriir badan uu la leeyahay wafdi kaligiis loo soo diray bal dadweynuhu ku daawanaya arrintaas maxaa ku qancin lahayd dadkaas way ammaanayaan laakiin waxa weeyaan habeen hore banaanbax qabanqaabinayay oo holnaan uga imid laakiin aniga waxaan ku ahay maanta magac ku leeyahay siyaasi reerkayga ima siin nin mucaarad reerkayga ima siin mid muxaafid ima siin dadku waxay ugu jecel yihiin inaan runta u sheego de hadda wariyaan nahay dad wariyaal jecel yaan nahay haddaan maanta 13 qof meeshaas timid waxay sheegayeen aan sheegi lahaa dadkuna ay TV dadku ma dhiga laamana indhalaa ay arki lahaayeen in meesha wax ka socota ay daraasad tahay oo isla wax dhiba ka jirin oo wax la xaraashi aan la isku soo hadal qaadin soo caab igama raacdeen marka waxa way wariyo waxa laga doonayaa wax run inuu sheego siyaasigu tiisoo wata anaguna de magac inuu inaan shalaa waayahay Soomaali badan ayaa ku daawanayso shirkanna waxay ka qabaan tuhum badan axsaabta ka dhisan gudaha dalka aragtiyo kala duwan ay ka bixiyeen adiga daahir ahaan goobjoog ayaa maanta tahay iyo aniga oo kula sugan maxaad dadkaas u sheegi lahayd ummadda Soomaaliyeed xaraashka aaminsan dadku waxaan leeyahay dalkiina xaq u leedihiin inaad difaactaan inaad cadawga ka weeraysan xaq u leedihiin shirki maanta waa waxa u nimid inaan dhehno ku aragno adiguna waad joogtay wariyaashii kalena way joogaan wax xaraasho meeshan lagu soo hadal qaado male wax balooga soo meeshan lagu iibiyo male marka waxaan leeyahay haddaad doonaysaa inaad farmaajo aan mataqaanaa mucaaradno dee waxaa jira farsamooyin kale to lagu mucaaradayo waxyaaba kale lagu dhalili karo ama aan ku qabsan karno laakiin dee tan ma shaqaynayso tan waxaa weeye mataqaanaa annaguna ma rabna ceeb ani waxaa jira dad badan oo aan saaxiiban nahay oo arrintan aan mucaarad la nahay laakiin mucaaradnimada micnaheedu ma aha in wax aan jirin oo oolin aan dadka ku masliid galayna ama aan ku mariya habaabino oo taasi waa ceeb oo dadku waxa weeye mid kale dadku Soomaaliyeed waxay soo ogeyn waxna daawan nala socdeen monitor gareynay kaliya shacabka Soomaaliyeed maaha international community ka monitor gareynaya marka international community-ga shirkay ogaayeen aniga aan been ka sheego oo aan dhaho shidaal inta lagu xaraashaya dee hawarka kale u sheega maxay u qaadan karaan dee isla beentu u qaadan karaan taas waxa ka baqatay maanta 2,000 oo qof ay ahayd qorshuhu inay meesha istaagaan 13 qof aan soo istaagay maxaa 13kaas muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ugu dambeyntii dareenkooda muujinayo kula dardaarmi lahayd ama message anigu waxaan leeyahay dadka anigu waan ogaa dadkii qabanqaabada waday rag fiican oo odayaal weey dad aad u wanaagsan weey Soomaalinimadii haysta laakiin de wixii beena aynu iska ilaalino wixii dadka ay hadhowdi hadda maanta soo saari kareen 2,000 qof maanta soo saari kareen hadda laakiin 2,000 qof soo saara maanta birta la rumaysamay hadii la yiraahdo maanta yaa sheegay warkaas daahir baa sheegay